السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaad saaxiibayaal. Waxay noo socday C++ course yani insha Allah waxaanu soo joojinaynaa qaybtii basiga. Waxaanu isla qaadan doonaa insha Allah intermediate iyo programming aynu ku samayn doonaa insha Allah C++. Hadduu Ilaahay raado marka haddeerta waxaan soo joojinaynaa C++ basiga ama waxyaalaha asaasiyaadka u ah. Okay, so waxaan samaysanaynaa structure good. Waxaan leenahay include iStack include iStream waxyaalaha sida loo kala horumarinayo sida loo sameynayo inaa markaa koodor aad fahantaan ayaa markaa okay ahayd. So muhiimada ugu weyn ee basiga intaas ayay ahayd. So namespace std kadib waxaa sameynaynaa functionka ugu weynaa oo mainka ah. Then marka maanta waxaynu isla qaadanaynaa wax loo yaqaano cin. Okay, markii ugu dambeysa waxaan dhihi jirnay return 0. So waxaan isla qaadanaynaa cin waxaa waaye yani qofka userka inuu wax soo geliyo. Inta badan inta ayaa yani wax ka qori jirnay kadib natiijada ayaa arki jirnay soo maa. Tookada waxaa waaye qofka userka inta markuu ka arko outputka ama natiijada markuu arko inuu asi number ama wax inuu soo geli karo. So waxaynu sameynaynaa marka variable oo number ay soo geli doono intinum ayaan leenahay ama number. Then waxaan leenahay qoraal u qoraynaa meesha waxaan leenahay enter a number. Cout waxaa waaye yani qoraal inuu soo baxo oo quotations aad qoraysaa. Then waxaan leenahay enter a number. Okay, enter a number markaa dhahayd qofka number uu soo geli rabo soo maa. Number maadaama uu soo geli rabo waxaan leedahay markaa cin waxaa waaye number uu soo geli rabo. So calaamadana sidaan ayaa dhihi doontaa oo dhinacana u jeedin doontaa. Kadib waxaan leedahay number meesha numberka la soo geli doono oo variable-ka ah ayaa markaa wacanaysaa. Okay, kadib number markuu soo geliyo waxaa soo gelisay numberkaas camal in la dhaha la rabaa. So cout allaha oo ah yani natiijada qoraalka noo soo bixi doona. Okay, kadib waxaan leenahay you iterate waxaan furaynaa quotations ayaan furaynaa. You iterate aan leenahay kadib waxaan sheegaynaa numberka uu soo geliyey. So numberka soo geliyey si aan usoo saarnaasina calaamadaas aan qoraynaa kadib waxaan leenahay number. Okay, spaceskan way ku anfacayaan si hadhow marka qoraalka inta kusoo baxay space ugu laado. Kadib marka waxaan leenahay run. kadib waxaa ujeedaa enter a number aan lahay xitaa waxaa ujeedaa meesha waxaa ka muuqda cursor oo qofka number uu geli karo. tusaale sadaal ayuu gelin lahay kadib wuxuu leeyahay enter kadib waxaa loo soo qorayaa you iterate number 9 oo kale. Soo ujeed. So sidatan marka waxaa weeyaan waa cin qofka userka inuu wax geliyo. Okay, so haddii intaan basiga aad fahanteen so projectyada waa isla socon kareynaa haddii Ilaahay raado. Sida qorshaha ku jiro maybe inay isbedesho waxaanu qaadan doonaa projectyo kala duwan. Waxaanu qaadan doonaa haddii Ilaahay raado console calculator conversion iyo random number generator sidoo kale number casting game sidoo kale waxaanu qaadanaynaa bunching program for beginners sidoo kale waxaanu qaadan doonaa programka weyn ee loo yaqaano rock paper scissors sidoo kale waxaanu qaadan doonaa quiz game sidoo kale waxaanu qaadan doonaa tic tac toe game. Okay, so insha Allah intaas aynu qaadan doonaa haddii Ilaahay raado. isla socon insha Allah projectyadaas waynu soo dayn doonaa insha Allah isbuuca soo socda iyo isbuuca kale hadduu Ilaahay yiraahdo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.